bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan daawadayaal markastaad joogtaan kusoo dhawaada xalqadeennii shanaad ee barnaamijkeenii xisaabaadka. Xalqadeena maanta waxaan kaga hadlayaa guud ahaan siday u dhan tahay falanqaynta bayaanada ama financial statement analysis waxa afka qalaad lagu dhaho. Falanqaynta bayaanada maaliyadeed ama waxaan soo wadnay xisaabaad iyo xisaabiye wanaagsan iyo habka xisaabaadka. Intaasoo dhan waxaa kasoo baxaysa wax la dhaho financial statement ama bayaano maaliyadeed ayuu soo saaraa xisaabiyuhu. Haddaba waxaa jira qolyo qaabilsan ama waax qaabilsan inay analyze gareeyaan, rogrogaan, baadhaan, turjumaan hab xisaabeedka intaasoo sano ama intaasoo bilood ama intaasoo cisho uu kasoo shaqeynaya xisaabaadku ama xisaabiyuhu. Falanqaynta bayaanada maaliyadeed waa isticmaalka ama isbarbardhigga bayaano maaliyadeed ama hab xisaabaadkaagii ama warbixintii kasoo baxay xisaabaadkaaga in ka badan sanad ama 2 sano ama 3 sano. Falanqeeyayaasha ama qolada falanqeynaysa bayaanada maaliyadda ama nidaam xisaabeedka way badan yihiin. Haddaba maxay u isticmaalaan ama sidee u isticmaalaan ama maxaa faa'iidaha ay ka rabaan inay rogrogaan kana warbixiyaan bayaanada maaliyadeed. Shirkadu way shaqeynaysaa in badan, xisaabiyuhuna wuu shaqeynayay in badan. Shirkadu waxay qabanaysay adeegyo kala duwan iyo waxyaabo kala duwan. Xisaabiyuhuna wuxuu qabanayay xisaabinta adeegyada iyo itemska ama alaabaha. Haddaba waxaa kasoo baxay bayaan maaliyadeed oo caddeynaya shirkadu inay intaasoo jeer wax iibisay, inay intaasoo jeer kharashaad gashay, inay waxaa samaysay, inay waxaa bayaano badan baa kasoo baxaya oo shirkada ku jirto haddii faa'iido iyo haddii khasaartay. Haddaba waxaa jira qolyo qaabilsan inay bayaanada falanqeeyaan, rogrogaan kana warbixiyaan oo xisaabiyaha gadaashi hawsha qabta. Ama markuu sanadku dhamaado ha ahaato ama mar kaleba ha ahaato. Bayaanada maaliyadeed falanqayntoodu waxay faa'iido leedahay ama waxay falanqeeyayaashu badanaa ku sheegaan inay isbarbar dhigaan hab xisaabeed ama nidaam xisaabeed sanadadii hore iyo nidaam xisaabeed dambe. Isbarbardhigga waxaa laga faa'iidayaa marka 2 sano la isbarbardhigo. Tusaale ahaan 2018 bayaan xisaabeedkii 2018 iyo 2019 nidaam xisaabeedkii ama warbixintii kasoo baxday bayaan maaliyadeedka. Marka la isbarbardhigo waxaa kasoo baxaya go'aan ah hadday dhinaca hantida tahay, hantida shirkadu miyay korodhay mise way yaraatay. Haddii dhinaca deynta tahay, deynta shirkadu miyay korodhay mise way yaraatay. Dhinaca iibka hadday tahay iyo dhinaca hadday tahay soo iibsiga. Adu dhinac kasta oo laga eego xisaabaadka. Bayaanadaas haddaba badanaa marka bayaanada la soo saaro ama bayaanada la falanqeeyo, falanqeyntooda warbixinta kasoo baxda waxa go'aan ka qaata ama isbarbardhigga bayaanada waxa go'aan ka qaadan kara oo isticmaala waxa loo yaqaano maalgashadayaasha iyo deyn bixiyayaasha. Shirkadu baaxadda ay leegtahay baaxadday doonto ha leekaato, intay doontana ha qaado, shaqaday doontana ha qabato, service-ka doontana ha lahaato, magacay doontana shirkadda ku dhex lahaato. Kaliya waxa ku filan bayaan maaliyadeedkeeda in shirkadaasi shirkad wanaagsan tahay iyo in shirkadaasi shirkad xun tahay. Maxaa yeelay bayaan maaliyadeedkeeda laga akhrisanaya shirkadda wanaageeda iyo xumaanteedaba. Haddaba falanqeeyayaashu waxay sheegaan in bayaan maaliyadeedka ama financial statement analysis waxa la dhaho waxa badanaa ku qancaa ama go'aan ka qaata maalgashadayaasha iyo deyn bixiyayaasha. Shirkadu deyn way u baahan tahay oo deyn way doonan kartaa iyadoo shirkadu weyn haddana deyn soo maahan kartaa. Ganacsi ama way qoran kartaa warbixin maalgashi oo lagu soo kordhin karo. Haddaba maalgashadayaashii sidee ugu qancayaan shirkadan? Kuma qanci karaan iyadoon hab xisaabeedkooda arag, kuma qanci karaan iyagoon xisaabteedii rogrogin, kuma qanci karaan marnaba kuma qanci karaan. Waan faa'iideeyay igu soo darsa adiguna ayar kuma geli karaan. Balse waxaa jira hab ay ku galaan habkaas oo ah financial statement analysis bay helaan ay ka helaan falanqeeyayaasha bayaanada maaliyadeed way eegaan shirkadda way ku qancaan ama way yeelaan oo waxay siiyaan aqbalaad ama way diidaan. Haddaba falanqayntan maalgashadu muxuu ka faa'iiday? Maalgashadu wuxuu ka faa'iiday wuxuu ogaanayaa shirkadda inta hanti ay leedahay, wuxuu ogaanayaa shirkadda inta deyn u maqan, wuxuu ogaanayaa shirkadda inta deyn lagu leeyahay, wuxuu ogaanayaa shirkadda sanadkii waxay iibiso faa'iido iyo khasaare waxa kasoo kala. Waxaa kaloo jirta deyn bixiyayaashu waxay u faa'iidaan ama waxay u isticmaalaan falanqaynta bayaanada maaliyadeed. Waxay ogaadaan habka ay deynta u bixin karto shirkaddan. Shirkadda intee ileeg bay deyntaada kugu soo celinaysaa. Shirkaddan awood ma u leedahay haddii deynta ay soo celin kara weydo ma haysataa wax bedela oo aad hadhow deyntaada u qaadan karto hanti ma guurtaa oo shirkadu leedahay. Shirkaddan waqti intee leeg bay ku soo celin kartaa.
ama waxaad hab xisaabeedkeeda ama nidaam xisaabeedkeeda ka dhex garan kartaa shirkaddan inta adigoo dee time la gelaya mar walba waqti heshiisa haddana waxaad ka faa'iideysaa ama waxaad ka akhrisan kartaa financial statement analysiskeeda inta jeer ay deyn iska bixin karto iyo inta jeer aanay awoodin inay deyn iska bixiso. way badan yihiin hababka wax loo falanqeeya ama way badan yihiin baan odhan karnaa habka falanqeynta laakiin saddex unbaa caana in loo falanqeeyo hab xisaabeedka. waxaa caana waxa la dhaho vertical iyo horizontal iyo ratio. verticalku waa joogutax xisaabaadkii in joogutax lagu sameeyo hab joogutaxa loo isticmaalo. horizontal waa jiifitaxiya waynu garanaynaa labada habi horizontal iyo verticalka joogutaxa iyo jiifitaxa ayaa la isticmaalaa. waxaa kaloo la isticmaalaa ratio analysis waxa la dhaho probability ama waxa la dhaho ratio tira cayiman oo qaacido ama formula loo qaato in lagu soo saaro shirkaddan xisaabeedkeeda. way badan yihiin habka verticalka haddaynu soo qaadano intaa wixii ka dambeeya waxay noqon karaan habab yaryar oo minor oo waxba lagu bisan laakiin saddexda hab ee ugu waaweyn ee lagu isticmaali karo ama lagu soo saari karo falanqeyn bayaan maaliyadeed waa saddexda hab. habkan verticalka haddaynu soo qaadano waxa weeyaan hab singala oo keliyaata oo sanad keliyaata la isticmaalaya iminka xisaabaadka 2019 tegay shirkad haddaad doonayso xisaabteedii markay ku keentay qolada falanqeynta u dhiibtay waxay soo saareen percentage-ka sanadkaas intaasuu ahaa intaasay percentage iibisay intaasay faa'iido soo gashay intaasay deyna iska bixisay marka waxaa loo isticmaalaa hab singala hal sano ah. hadday u nimaadno horizontalka ama jiifutaxa xisaabta waxaa loo nidaamka maaliyadeed loo soo bandhigaa hab jiifutaxa waxaana la xisaabiyaa la isbarbar dhigaa bayaan maaliyadeedyo sanado hore iyo bayaan maaliyadeedyo sanado dambe. tusaale ahaan waxaa la isbarbar dhigi karaa 2016 iyo 2017 waxaa la isbarbar dhigi karaa 18 iyo 19 adoo afartaas sano adoo isbarbar dhigaya waxaad sameynaysaa sanadkii koowaad baad taxaysaa bayaan maaliyadeedkiisii ama hab xisaabeedkiisii sanadkii labaad baad taxaysaa 16 markaad taxdo 17 aad taxdo farqiga labadooda u dhexeeya ayaad haddana dhigaysaa. waxaad sameynaysaa haddii hantida shirkadaasi ay ahayd 2016 $50,000 2017 ay noqotay $70,000 ama $80,000 waad garan kartaa farqiga xisaabeed ama kordhay ama yaraaday. markaad halkan aad soo saarto farqiga xisaabeed ee kordhay labadaas sano ama isbedelka labadaas sano waxaad u bedeli kartaa ama aad ogaan kartaa percentage-keeda ama hab tiro qoraaleed oo kale oo waxaad odhanaysaa haddii 2016 hantida shirkaddan intaa ahayd 2017 hanti intaa leeg soo gashay intaa noqotay percentage intaa leeg ba shirkadda hanti kusoo korodhay. deynta lagu leeyahay shirkaddan haddii 2016 ay ahayd $50,000 ama $60,000 2017 ay hoos ugu dhacday $30,000 noqotay waad arki kartaa deyntooda intay iska dhacday ama intay iska bixiyeen faa'iido intee leeg ayay shirkaddani faa'iiday oo deyntan iskaga bixisay. markaa waa isbarbardhiga horizontalka waa isbarbardhiga labadaas sano kii hore waxaad isticmaalaysaa hal sano iyo percentagekiisa kanna waxaad isticmaalaysaa horizontal analysiska ama jiifutaxa falanqeynta jiifutaxa maaliyadeed labadaas sanaad isbarbardhigaysaa adigoo percentagekiisana soo dhigayo oo markay korodhana percentagekuu kordhaya markay yaraatana percentagekuu yaraanaya. waxaa jira hab saddexaad oo loo isticmaalo oo la dhaho ratio analysis. habkaasi wuu sii kala baxaayo dhowr buu u qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa 4 ilaa 5 ilaa 6 yaryaroo habood oo kale lagu soo saari karaa habkan waa hab xisaabeed badanaa isaga labadii haba kale way ka fududaayeen oo waa isbarbar dhigaysun sanad iyo 2 sano iyo 3 sano laakiin habka waxaad sameynaysaa calculatorkaaga intaad soo qaadato ayaad hab xisaabeed kusoo saaraysaa shirkaddan intay faa'iiday. waxa u horeeya ama ratio analysiska 4 waaxood uu qaybsamo waxa u horeeya balance sheet analysis wax la dhaho shirkadda balance sheetkeeda tegaysaa balance sheetkeeda markaad tagto habkan waxaa lagu soo saaraa awoodda deyn bixineed ee shirkaddaasi leedahay. haddaad deyn bixiye tahay waxaa kuu muhiima inaad ogaato awoodda deyn bixineed ee shirkaddan ama ururkan ama organizationkan leeyahay. saa daraadeed waxaad kusoo saaraysaa ratio analysis weliba waxaad kusoo saaraysaa balance sheet ratio analysis wax la dhaho. marka waxaad ogaanaysaa awood intee leeg ay shirkaddan leedahay inay deyn bixiso. habka labaad ee isticmaalay waa liquidity ratio la dhahayo uu ka tirsan yahay. habkan wuxuu sheegayaa shirkaddu inta jeer ama inta hab ee ay u rogi karto
asadkeeda ama hantideeda shirkadda dhex yaalla cash yacni deyn baad amaahinaysaa oo kale shirkadda waad haysaa asadkeeda inuu ka badan yahay deyntaad amaahinayso hadhow shirkadda haddii deyntii shaqayn kari weydo soo saari kari weydo hantideedu ma loogu bedeli karaa lacag cadaan ama lagugu bedeli karaa ma lagu siin karaa waa habka labaad ee lagu soo saari karo habka saddexaad current ratio la dhahaa oo waxaa lagu soo saaraa cabir ahaan xooga dhaqaale ee shirkaddan leedahay xoog intee leeg marka la isu wada geeyo deyn iib iyo hanti iyo amaah iyo nooc walba marka la sugayo wax ka maqan iyo wax u maqan iyo waxyada lagu leeyahayba hab dhaqaale intee leeg ba shirkaddan leedahay waxaana lagu soo saaraa badanaa ratio isu geynta hantidaadii aad haysatay ama hantida shirkaddan haysatay oo dhan loo qaybiyey hantida waxa deyn kaa maqan ama deyn lagugu leeyahay ayaa lagu soo saaraa badanaana waxaa loo isticmaalaa hab la dhaho 2-to-1 oo labadii jeerba halkii marba laba jeer wax ka badan shirkaddan haysan karto ayaa kuu faa'iidaa ama halkii deyn markaad amaahinsana laba jeer inay bixin karto deyntaadan ayaa adiga kuu faa'iidaa habka ugu dambeeya waxaa la dhahaa quick ratio waa awoodda dib u bixinta deynta haddii balance sheetka ay ahayd qofkan intee ilaag ay awoodda deyntaada bixin karaa waxa weeyaan quick rationa waqti intee leeg ama muddo intee leeg haddii aad u qabatay sanad iyo wax ka yar iyo 2 sano wax ka badan ama ka yar ma ku keeni karaa muddadaad u qabatay habkanaad kusoo saaraysa markaad shirkadda bayaankeedii maaliyadeeda hayso falanqayso habkanaad kusoo saaraysaa in shirkadda quick ratio kusoo saaraysaa in shirkaddani waqti intee leeg kugu soo celin karto waqti badan waqti yar waqti dhexe waqti intee leeg ayaad ku go'aamin kartaa waad soo qaadi kartaa bayaanada maaliyadeed ee dowladdaada ama shirkadaada ama ururkaaga waanaad falanqayn kartaa adigoo isticmaalaya hababkan marayana procedureskeeda intaa waxaan kusoo gabagabeynaya xalqada maanta oo ah falanqaynta bayaanada maaliyadeed shirkad urur dowlad ama ganacsi kolba kaa doonto waanad u isticmaali kartaa hab alaalihi habkaa doonto adigoo raacaya tixraacahaygan waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waynooya xalqadan xalqada ku xigta hadii allah wadala